waxaan rabaa marka koowaad inaan u hambaliyeeyo dadka Soomaaliyeed iyo ciidanka iyo siyaasiyiinta iyo gudlada badbaado qaran oo diidayay extensionka. waxaan si gooni ugu mahad celinayaa bahda saxaafadda oo weerar lagu soo qaadayay baryahan. waxaan u tacsiyeynayaa mustaqbal media oo ay soo weerareen ciidanka madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday maadaama uu kelmaddaas aad iyo aad u dhibsaday. laakiin waxaan sheegaynaa madaxweynaha muddaxileedkiisii waa dhammaaday ama ha raba ama yuu rabin. waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed intii garatay inuu extensionku halis ku yahay danta dalka iyo dadka. waxaan u mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Hirshabeelle oo markii u dambeeyay saxiixay inaan waddankan extension la aadi karin, noqdayna meeshii uu ku waana qaatay keligitalisku. waxaan dhegaysanaynay khudbada keligitaliska madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Farmaajo. wuxuu yidhi sharcigii aad ansixiseen wuxuu keenay khalkhal amni. wuxuu eedda ku soo wareejiyey sidaan hore idinku sheegay baarlamaanka. golaha shacabku wuxuu ku eedeeyey in go'aankii ay ansixiyeen uu khalkhal amni magaalada ka abuuray. maalintiina meesha waa ka sheegnay. go'aankana asagaa u soo dhiibay. golaha shacabka iyo meesha la yidhaahdo guddoomiyahooda mursalna asagaa soo adeejiyo yidhi ordaha 2 sano igu dhufta. 2 sano lama aqbali karo. waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheego kuwa badan baan maqlaa oo leh maaragtay nabadda hala aado, nabadda qof walbaa rabta, laakiin nabadda ninka ka shaqeeyay nabad darrada waa ninka 2 sano oo sharci darraa raba inuu qaato. waa ninka raba beebaha dawladda Turkiya ay noogu deeqday iyo midkay dawladda Qatar noogu deeqday inuu xildhibaanada iyo murashaxiinta ku boobo oo ku dardaro. haddaba waxaan rabaa khudbadiisa markaan dhegaystay waxaa ka cad qodobo ay tahay in la caddeeyo inay aad iyo aad u tahay. waxaa muhiima in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu ogaado inuu ciidamada qalabka sida kala qaybiyey. uma noqon karo commander in chief. wuxuu sheegay amniga doorashada inuu wareejiyey. waxa laga rabaa waxay tahay amniga dhan inuu wareejiyo. sababtuna waxay tahay ciidamadii uu kala qaybiyey ma aamini karaan inuu taliyo guud commander in chief u noqdo. waxaan codsanaynaa ciidanka sida uu dhan yahay ma aha kan doorashada keliya, kulli inta kalena in ra'iisul wasaaraha loo dhiibo. lambar 2 waxaan codsanaynaa oon caddaynaynaa oon idiin sheegaynaa inay aad iyo aad muhiim u tahay inuu qoro warqad uu ku caddaynayo amniga dalka iyo midka doorashada inuu wareejiyey si teendhada afisyoona loogu laabto. midda saddexaad arrinta ku saabsan oo ummadda Soomaaliyeed aan rabo inaan u sheego dhammaanteed meel kastay joogto, muddo kordhin dambe madaxweyne dambe waa inuusan ku dhiiran. waa in ummadda Soomaaliyeed ay ogaataa in muddo kordhin sharci darra ay dhali karta 20 sano gardarro ah. 20 sano kadib intii la burburi lahaayna hadda intuu fudud yahay in la iska qabtaa fiican. waxaad ilaaliseen dastuurka ciidamada ku jira sayidka hoostiisa. waxaan u sheegayaa waxaad ilaaliseen dastuurka, waxaad ilaaliseen sharciyadda. yuusan keligitalisku been idiin sheegin. beerlaxawsiga, kelmadaha macmacaan marka runta la isu sheegayo wadahadalka lagu jira madaxweynuhu ha sheego. tanaasulka uu afka baarkiisa ka sheegayo marka la taagan yahay golaha tanaasulka looga baahan yahay ha sheego. markuu xukunka boobayo ma sheegayo, markuu ku dhaaranayo taangiyada ma sheegayo, markuu ciidamada soo diranayo ma sheegayo. kelmaddeeda u dambaysa waxaan u jeedinayaa ciidamada qalabka sida dhinac walba ay jiraan dalkan dastuuruu ku taagan yahay. qori qof wata kuma taagna, qori la soo bariyo kuma taagna, mid qabiil kuma taagna. dastuurka aan ilaalinno. dastuurka madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday hadduu 2 sano xaq u siinayana difaac, hadduusan xaq u siinayninna ka leexo. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.